madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa gudoomiyey kulan hordhac u ah shirka amniga qaranka. kulankaas oo ku qabsoomay aaladda internetka waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan cali khayre, ra'iisul wasaare ku-xigeenka, dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. ugu horeynba madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ka soo qaybgalayaasha kulankan la wadaagay dhowaan shirkii dib u heshiisiinta ee uga furmay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti. madaxweynuhu waxa uu xusay niyad wanaagga dowladda federaalka ay la tagtay shirkaas. waxa uu sidoo kale xusay in shirkaasi uu sii socon doono. waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu la wadaagay dhammaanba ka soo qaybgalayaashii kulankan sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya uga go'an tahay wada shaqaynta maamul goboleedyada taas oo ku dhisan dimuqraadiyadda iyo rabitaanka shacabka. ugu dambeyntii kulankan waxaa lagu heshiiyey in dhowaan si dhaqso ah loo qaban doono shirka rasmiga ah kaas oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu go'aamin doono goobta iyo goorta uu dhici doono shirkaasi. waa mahadsantihiin.